iyadoo baryahan baraha bulshada la isla dhaxmaray warar sheegaya in wariye Salmaan Jamaal Saciid oo la fakaday lacag loo soo diray sarkaaladii ku dhibaataysnaa dalkaasi Turkiga ay Faiza balse Faiza mar ay maanta khadka Facebook ay soo gashay ayaa waxa ay warkaasi u dururtay gaashaanka iyadoona sheegtay in wararkaasi ay yihiin kuwa aan sal iyo raad toona lahayn oo la doonayo in lagu dhaawaco sumcadda uu bulshada ku dhaxleeyahay wariyahaasi wadaniga ah ee Salmaan Jamaal Saciid. walaalkay Salmaan Jamaal Saciid waa qof runtii asagana noloshayda kaalin ka soo qaatay waa qofka kaliya maanta markaan joogay wadan qurba ah runtii garab isiye wali alihi kuma fakirin Salmaan Jamaal inuu habeen uu macni iga maqnaaday in macni dan ee imaata maahani Salmaan wuxuu ahaa qofka garabkayga qofka kaliya aan ugu jeclaa Soomaalida markii la dhaco anishan uu iga dhawaad dadka qof wuxuu ahaa aad igu naxariis badnaa runtii dad baa waxay leeyihiin Salmaan Jamaal wuxuu cunay Faiza lacag loo soo diray Salmaan waligii ma dhicin inuu aniga lacagtayda oo tiisa inaan aniga u isiyo mooyaane waligii ma dhicin lacagtayda inuu cuno Salmaan dad baa meelaha wareejinay Faizo wax loogu soo dhiibay ayuu Salmaan cunay Salmaan qof ka daacadsan waligii ma arkin Salmaanna waligii xaqayga ma cunin mana cuni doono mana ka suurta gasho waa nin Soomaalinimada ku weyn tahay waa nin wadaninimada ay ku dheer tahay waa nin dad jecelnimada ay ku dheer tahay hal iska daay dulmiga walaalayaal oo aadeysin Salmaan Jamaal Saciid waxa weeyaan ninkii cunay